Salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa walaalkiin Cabdicasiis oo idin leh nabadgelyo korkiina Allah ha yeelo. Marka hore waxaan kaa codsanaya inaad subscribe ii saarto, sidoo kale ha ilaawin in aad gambaleelka riixdo si ay kuu soo gaaraan wax walba oo aan aniga soo geliyo. Waad ku mahadsantihiin, sii gaarsii walaalihiina kale. Maanta mowduuceena wuxuu ku saabsan yahay salaada, habka loo tukanayo. Qofka salaada markuu xirto wuxuu akhrinayaa duco la yiraahdo ducaa iftitaax. Way badan yihiin ducooyinka, laakiin waxaa sida badan la akhriyaa wajjahtu wajhii liladii fatara samaawaati wal arda xaniifan musliman wa ana minal mushrikiin inna salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbil caalamiin laa shariika lahu bidaalika umirtu wa ana minal muslimiin. Qofka markuu intaas dhammeeyo wuxuu akhrinayaa suuratul faatixa. Markii uu dhammeeyo suuradaha gaagaaban suurad ka mid ayuu akhrinayaa. Waxaa fiican ayaa la yiraahdaa suuradda hore inuu ku akhriyo qul yaa kaafiruun oo kaleenta, tan kalena qul huwallaahu kaleenta. Kadib qofka wuu rukuucayaa. Rukuucana waxaa loo baahan yahay gacmahaaga jilbaha markay saaran inaadan jilbaha ku qaban ee aad caadi u saarto si ay ula sinaadaan sujuudaada. Sidoo kale rukuuca waxaa loo baahan yahay markii aad rukuucdo madaxaaga inuusan zaid hoos u jirin ee dudkaaga iyo madaxaaga ay siman yihiin si ay rukuucaaga u saxnaato. Sidoo kale rukuuca waxaa loo baahan yahay in lagu nagaado. Waxaad leedahay markaad rukuucdo subxaana rabbiyal cadiimi wa bixamdih ayaad 3 mar ku noqnoqaysaa. Subxaana rabbiyal cadiimi wa bixamdih 3 jeer ayaad ku noqnoqaysaa. Sidoo kale rukuuca waxaa loo baahan yahay in aad dumaaniino la timaado oo aad ku xasisho. Markii aad ku xasisho kadib waxaa loo baahan yahay samica allaahu inaad tiraahdo, gacmahana aad kor u taagto oo dhagahaaga iyo suulashaada ay caadi isku taabtaan. Sidoo kale samica allaahu markaad tiraahdo hore garabka ma dhehaysid, iyadana waad ku nagahaysaa. Markii aad ku nagaato waxaad leedahay samica allaahu liman xamidahu rabbanaa lakal xamdu mil'u samaawaati mil'u al-ardi minhu maa shi'ta min shay'in bacdahu allaahu akbar waa dhihi kartaa. Ama kale samica allaahu liman xamidahu xamdan kathiiran tayyiban mubaarakan fiih. Labada midda kuu fududaad qaadan kartaa, laakiin mar walba waa dumaaniinada waa muhiim inaad ku xasishaa. Kabacdi waxaad aasanaysaa sujuudul awwal, sujuudka la yiraahdo sujuudka koowaad ayaa laga wadaa. Sujuudka koowaad isagana waad ku xasilaysaa. Sidoo kale looma baahna in aad gabgab hore ka tiraahdo. Sujuudkana waa meelaha Ilaahay loogu dhawaado meesha ugu fiican. Muga waxaa loo baahan yahay sujuudka in aad ku xasisho. Markii aad sujuuddo waxaad akhrinaysaa subxaana rabbiyal a'laa wa bixamdihi, subxaana rabbiyal a'laa wa bixamdihi, subxaana rabbiyal a'laa wa bixamdihi 3 goor ayaad ku noqnoqaysaa. Sidoo kale ha ilaawin in aad dumaaniinada ku xasisho, maxaa yeelay sujuudka naftirkiisa waxaa looga baahan yahay in lagu xasilo. Qofka sujuudda ku xasilo ayaa si fiican ugu dhow Ilaahay. Markaas kadib waxaad soo aadaysaa rabbi ighfir lii, juluus bayna sajdatain ayaa la yiraahdaa. Waxaad akhrinaysaa rabbi ighfir lii warxamnii wajburnii warfacnii warzuqnii wahdinii wacaafinii wacfu cannii allaahu akbar ayaad leedahay. Juluus bayna sajdatain asigana sidoo kale dumaaniinada way la jirtaa. Meel kasta oo aad tagto dumaaniinada way la jirtaa. Dumaaniinada ma loo baahna in aad ilowdo. Juluus bayna sajdatain asigana ducadaas ayaa lagu akhriyaa. Ducadaas markii aad ku akhriso kadib juluus bayna sajdatain oo laga helo dumaaniinadii iyo waxyaabihii lagaaga baahnaa, kadib waxaad aadaysaa sujuudkii labaad. Sujuudka labaad asagana sidii aan hore usoo sheegnay waxaa lagaaga baahan yahay dumaaniinadii iyo tasbiixdii aan hore usoo akhrinay. Sujuudka labaad isagana waa sidii oo hore, waxaana loo baahan yahay ninka ragga sujuudka markuu sujuudayo in uu gacmihiisa ka dhaqaajiyo cajiradiisa, halka looga baahan yahay dumarka in ay gacmahooda iyo cajiradooda isku dhaweeyaan. Muga sujuudka labaad markii aad gasho waxaad akhrinaysaa tasbiixdii aad hadday akhriso kaleenta subxaana rabbiyal a'laa wa bixamdihi, subxaana rabbiyal a'laa wa bixamdihi, subxaana rabbiyal a'laa wa bixamdihi. Markii aad akhriso oo aad ku dhex nagaato sujuudka labaad waxaad soo aasanaysaa faatixadii, maxaa yeelay ragcadii ayaa dhammaatay. 1 ragca ayaa meesha noogu dhammaatay. Si ragcooyinka kale xagga ayaad ka tilmaamo qaadaysaa, laakiinse ani waxaan kasii wadi doonaa atixiyaadka. Atixiyaadka koowaad waa sunno
haddii aad ka tagtaa u soo laaban waxaad ku kabi doontaa sujuudu sahwiga sujuudda la yiraahdo. Sidoo kale ataxiyaadka koowaad waxaad ku simi kartaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullaahi allaahumma salli calaa sayidina muxamadin. mahaasaa lagu simaa ataxiyaadka koowaad, mahaasaa lagu simaa. Muga ataxiyaadka koowaad haddii mahaas lagu simo, ataxiyaadka labaad waa ka duwan yahay ataxiyaadka koowaad. Ragcadii labadaas oo dhamaysata haddii maqrib aheedne, ragcada saddexaadaba ataxiyaadka labaad dooni, haddii cisho aheedne hal ragca kuu sii dhiman, halkaas ragca markaad dukata kadib ataxiyaadka labaad doonaysaa. Ataxiyaadka labaad isagana kaasi sunno maahan ee waa waajib, fadhigiisana waa waajib, ataxiyaadka naftirkiisana waa waajib. Laakiin ataxiyaadka labaad naftirkiisa waa ku simi kartaa kii hore meesha ku simtoo kaleenta. Sidoo kale waad ku simi kartaa innaka xamiidun majiid. sidoo kalena waad ku simi kartaa allahumma inni acuudu bika min cadaabi alqabri, min cadaabi naar, min fitnati almaxyaa walmamaat, min fitnati almasiixi dajaal. balse waxaa fiican inaad kusii darto ducadan la yidhaaho allahumma innii dalamtu nafsii dulman kathiiran طيبا كثيرا اللهم إني ظلمت ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ducadaas inaad ku darto ayaa fiican. mugaas kadib salaadii ayaa kuu dhammaanayso, waad salaamo naqsanaysaa. saddexdaa meelood meeshaad doonto ayaad ku joojin kartaa, laakiin markaad imaam tahay waxaa la jecel yahay in aad ku joojiso innaka xamiidun majiidun si ay u dhibsan dadka adiga kuugu xiranaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.